كومنتي وانا اسكك حياة سياد اسكب بالله صوبت مرة كل لو كن مركي ملاس لقرسي أنا بعدين نتصل بالله أنا قاعد نحفظ هذا السنة قف يسوي كلام الجريء مسؤول له حلوانه واحد دون تعاون قفني مسوي كريه وعفيف قف كي يسوي على نمبر كي هو هاي يسوي إن شاء الله قاري لحسن جرى شاي صداقة لفن جرى ها قاري لفن جرى اوف راح دي حرير ميغانيو حرير ميغا كسوعي وي اركان ان لايف كجرو سوعيان waxan waxa iga saxan hadin mugta بس والله سيدي بان سو jeeda فيس بان ku jira mugta فيس aadan ku jirin nin ciidan oo dagaal ku jiro askar ay ku hareeraysan tahay dagaal waxba ma dhaamo go'doon caadana hala sheer garay hay loobina xaq dirarka oo dhan waxa la wixii xaq dirar oo dhan xaq dirarka ma dee baan moogta anigu ma isku jalnahay qofaan xaq dirar ahaan dee waxaan isu sheegnaa ma garanayo ilaa xaq ka soo jeeday Allah maxay ii soo wacayaan live baan ku jiraa u jeedaan بسم الله والله كوانا نوفي موت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مد الصوماليات شعبي الصوماليات ملكست أدونك جوكتوان السلام يا كل جين ننكي شيخ شادي صاحب القهوة إنه سووا جدا إنه باكو عرّي مسكين هو دقال الله قريب أنا موقت مركا إنه بايري راد مركا كوبات مركا لبات وحربا هل كان نوهم هذا عليه لما الشعب وينها الصوماليات ملكست أدونك جوكان qof kasta oo maxaa lahay ka dhigay dulmigii iyo fuquuqii iyo takoorkii soocidii ay ugu dhaqantay wasiir Khadiijo kaas oo ilaa hadda hawshiis wali aynan waxba iska bedelin oo wali ay saato waxaan rabaa halkaan inaan ka cadeeyo idin sheego arrintaas inay wali halkeedii tahay oo wax iska bedelaysan jirin waxa kale oo rabaa inaan idin sheego oo rabaa halkaan inaan kala hadlo oo rabaan dhammaan dadkii shalay daawanayay kuwii xalay daawanayay inaan raali galin buuxda aan idinka siiyo shalay markaan xanaaqsanaa maan is control karin erayo aan dadka Soomaaliyeed aan u fiicnayn dhigaha Soomaaliyeed aan u fiicnayn oo intaan live-ka ku jiray xaggan aan ka sheegay oo xilli aan careysnaa ku guda jiray isdifaacid oo ka hortagay dad aniga dagaal ugu la jiray aan xaggan ka yiri kuwaas oo ay kamid ahaayeen landheer aan ahay reebel waa midgo ama waa dadka laga tiri badan yahay boqolkiiba boqol waan ka raali galnay waan ka xumahay ومaanan tala galin bareer maanan ahayn laakiin waa dareemi kartaan nin dhalinyaro ah oo meel lagu bahdilo la xumeeyay sida uu ku jawaabi lahaa hala si sheer gareeyo live-kan ummadda Soomaaliyeed waan ka raali galnay boqolkiiba boqol ومaanan tala galin waxay ahayn qalad aan maartay waqtigiis aan ku soo aadin buu sababta ay u dhacday arrintaasna waa dogtiin waa la dulmiyay qofka dulmiyay ma ahayn qof shacab ma ahayn qof caadi ah ma ahayn qof aan ku tilmaami karo يعني qof iska caadi ah horta shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol fariimaha soo diraysan aad bay u badan yihiin ma wada akhrin karo telefoonada saa u tirada badan kama wada jawaabi karo ma wada qaban karo dad yar baan ka qaban karaa waxaan horta idin sheegayaa inaan nabad qabo inaan gurigeyga joogo in aan xaaladda caadi tahay sidii waagii hore aan waxba iska bedelin
wixii iman doona Allah aclam waxaa kaloo rabaa inaan idin sheego inaanan qabin hal asheer garaya wax la yiraahdo baqdin ama cabsi ama walwal ma qabo just kale waxaan ahay nin dhalinyaro oo dagaal ku jira dagaalka qofku kula jira inuu yahay qof dawladda kamida golihii wasiirada kamida baarlamaankii kamida qof noocaas weeyaan qofka anigu hadda aan dagaalka kula jiro oo rabo inaan iska dhiciyo qof noocaas weeyaan qof noocaas weeyaan qof xasaanad leh waa qof ku fadhiya maqaam sharci ah oo dawli ah ku fadhiya weeyaan aniguna waxaan ahay inaan idin sheego waxaan anigu waxaan fanaan Soomaaliyeed fanaan ummadda Soomaaliyeed siman fanaan xamar ay magaaladiisa tahay fanaan jigjig ay magaaladiisa tahay fanaan ay Kismaayo magaaladiisa tahay fanaan ay Hargeysa magaaladiisa tahay fanaan ay Garowe magaaladiisa tahay bal hadalkayga si fiican loo dhaxo shacabka Soomaaliyeed anigu taan rabaa inaan horta idin sheego waxaan rabaa inaan yani idin la wadaago inaan ahay qof dhaxdhaxaad ah balaad ugu fiirsa hadalkaas qof dhaxdhaxaad aan cidna la jirin qof la dhacayo la dadaalayo noloshiisa asaasiga iyo basic life waxa loo yaqaan qof la dhacayana ma yihi waan idin sheegaya ma yihi nin askar wato ma yihi nin dabaabaad wato la waardiinayo waxaan ahay qof noloshiisa lifekiisa gooniga la nool intaas kadib waan rajaynayaa insha Allah dadka xaggan iga daawanaya dhamaantiin inay iga qaadateen oo iga aqbasheen raali gelintaas buuxda oo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed oo idaawanayay oo dhagahooda ay ku soo dhacayeen shalay toole eraya aan ku haboonayn oo munaasab ahayn iga raali ahaada 100% ugumaanan tala gelin inaan erayadaas dhahe way iga fakatay waxaana iga tambadisay cadiifada iyo waxa iga tambadisay hala sii shirgaray waxa iga tambadisay dagaalka ay gula jiraan qoladan dagaalkaas ayaa iga tambadiyay inaan erayadaas isticmaalo waad taqaanaan waligeey Allah intaan live-ka isticmaali jiray ama shakhsi xitaa mucaarada jiray waliga qabiil ma aan adeegsan jirin laakiin aniga waa la adeegsaday ma iloobi doono mana hilmaamayo eraygii shalay ahaa xamar meeshani jigjiga ma aha wala fiirsa hadalkaas jigjiga ma aha go to jigjiga ordo jigjiga aad oo dhaantada aad jigiso ku soo bandhig qofka saasi dhahay ma garanaysan waa wasiir waa xildhibaan waa qof ku fadhiya maqaam dawli oo sharci ah qofka aniga sidaas dhahayo intaas waxa ay dheer la aha xaalado kala duwan oo iga soo gaarayay dad la adeegsanayo ama la soo diray waayo waan ogahay Khadiija anigu toos ima soo aadi karto way garanaysaa shiino wadayam ya hooyam way garanaysaa waxa qofkaan anigu ahay way garanaysaa ayadana waxay tahay garanaysaan ayada way garanaysaa anigu marka muhiimadda ugu weyn oo hadda live-ka u soo galay waxay tahay inaan laba qodob inaan idin la wadaago labadaas qodob oo ah maxaa xal isbedelay ilaa saacada la joogo maxaa isbedelay war maxay soo wacayaan waxan bullshit-ka maxaa isbedelay maxaa soo socda maxaa filaysan horta hal arrin ogaada wallahi anigu horta cabsi ma qabo laakiin waxaan idin sheegayaa haddii aan u dhinto dhereg haddii aan dhereg u dhinto wax kale iska daay haddii aan dhereg u dhinto waxa mas'uulka ah Khadiija diiri xataa kalima dawladdan ayaa mas'uulka waayo Khadiija dawladda ka tirsantaa Soomaa maxaa ku filan cabdi dhaanta orad hala soo xidho intaas ay ugu filan Soomaa haddii la yimaado loo dhigay malahan kali waan galaya aanu nande mana diidayo awooddaasna way leeyihiin Soomaa ilaa hadda wax arintaas iska bedelay malahan wax iska bedelay malahan shalay toole haddii ay ku raali gelinaysay Khadiija waad ogtiin qofka ay tahay ilaa dawladii hore la soo sheeqin waa islaan Mariana oonan qowl xira lahayn oo ilaahay ka cabsanayn oo bini aadam ahayn oo laba wajiila fiiri laba wajiila naag waxa weeyaan laba wajiila hadde malaha mabda iyada u gooniyaha ma jiraan mabdaeedu waa inay calooshaad u shaqayso oo kolba dawladdu timaada iyo cidii timaada ay sacabaha u garaacdo intaas weeyaan
ما أهم موقف كده مدفع يوم يركو قطمة ما أهم we know وان أجنها تاس وح أنو كدرك سنة وين درى الدولة دي حسن الشيخ محمد سمينيس شلت ولا حسن على خير مركو ماشي في الديوان أنا ماشي اللي يقول حميني اللي يقول بهدلي هساه بلد وابري أي قاضيين هايقرر على هذا الفنانين تيدتك مسؤولين تسوعي هذا وندي بدن كلاه الدونات دتك سوعي أنت لايفك كجري إيجا داية بالله عليكم هايوك عنا ديجي هايوك عنا نربها نبى استاكسنة وان أجنها هاي وان كدرك سنة هاي وأنتي ما أنت حامل مجرى شرعي كلا دنبين مجرته عدالة مجرته محكمة لو كلا بقى قرصور مجرى وح هذا يراتك كجرا ملهن وأنو والله بابا على وشاق يلا فاقي أفكاقة من كعيرين نينكي مسكين ولا ويانا وحبط كما أكون على أما توصي برير اللودي أنا هذا ولا يدلك كرا قبل إيربوت كده حد اللي قلت وجنسه قبل مساكين ما ينهين أما كذا لا يلعلنا يو أو ماشي وضن كلا حكم اللي قلت لي ده أنا محانا مركز أنا محانا مركز حاجين تاجنا مركز يعني وحاويا بيلغوا ما كبنا ويان هلا سيشر جري لايف كجان مركا أمد الصوماليات جارهان دتك قربها كنول دتك ديودا كنول أو وضمد عدالة دي كلا ضمنت يا شرعي وكشق يكونول أو يلصق حريري أو يجول والسنات أو أهلك يا أصحابته يا دتك الصوماليات بله وحنا دي الشيء يا وانا ما قبع دبعتني مجرته وعلى السنة مجرو لكن حالة ده أوكي وانا لكن وحنا قف سوق يا عدالة رباه إنه سوق عرفت تاسنا إلا يجا قنعيه مويا سدنا حالة إنه تجنانسه markii la iga qalciyo oo la yiraahdo Cabdi Dhaanto la hor fariisto dadka wadankan madaxda inta ay soo fartay la yiraahdo maxaad ka tabanaysaa maxaas lagu sameeyay arintaasna khalad bay ahayd markaas baan kala garbaxayna inta ka sugayso Soomaa dagaalku soconaya dhufeeskana waan ku jirayaa ballan Ilaahay weeyaan ama iguna ama igu jeclow sababtii waxay gala malahan aniga sababtii waxa kale oo rabaa inaan sheego maxaa ku qornaa boorka dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka ayada hadda soo qoraysa ayada dhalinyarada anigu dhalinyarada kamid ma ahan miya ma doon baana ma waxaan ahay ma xaga maxaan ahay anigu nisasay hadalka u dhigtay ahayd ba goobta jigjigaana jigjiga magaalo Soomaaliyeed kama faanay waan ku dhashay xuduntayda ku duugan deetan ana iskale tan aniga iskale waa magaalo Soomaaliyeed waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed hala share gareeyo live kan hala share gareeyo anigu indhihi bulshada aan ahay dadkii lagu daysanay aan ahay ma ahan waxyaabo aan loo baahnayn dadka xitaa inaan u horseedo sax ma xaqana inaan ka aamuso sax ma xaqa inaan ka aamuso sax ma aha dadka inaan wax aan haboonayn aan u horseedana sax ma tan marka waa xaqi waxaan xaqlayaasha wadanka ayaana dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka boqolkiiba intaas waa percentage anagu ma hidde dadka de ma aha bahalka aan xal sheegay magaciisa mar inaan sheegay oo la isticmaalo inta hal mar la gashto may hasha ma ihi qof la dirsado la isticmaalayo caawa 10 kan waa inoo ballan dadka hurda na message kan waan gaarsiin doonaa kuwa hadda hurda ma aha kuwa hadda soo jeedana isku waqti kuwaasna message kan gaarsiin wayna soconaysaa uguma tala galan hadda inaan caytamo oo maxay soo wacay ugumaanan tala galin laakiin awooda iyo kartida raganimada igu jirta inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego oo ay arkaan intaasan doonaya bas hala share gareeyo live kan hala sii share gareeyo ummadda Soomaaliyeed hala sii gaarsiiyo waa dulmi qadiija diiriye waxay ku fadhidaa maqaamkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wasiir u tahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa hadii sida saxda loo dhigo hadii dad la soo aruuriyay oo afar wax laga keenay ay wasiir u tahayna ima qusaysa taas oo ku ilaashanaysa kursigeeda iyo mashaariicdeeda ay rabto inay nafteeda ku nolosheeda iyo midda ay ku dabarto laakiin waxaan rabaa inaan sheego inaan ahay nin muwaadin Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa lagu faanayo dhalinyarada hadda soo baxaya oo lagu faanaya kamida hadii ay noqon waayo oo Khadiija tiraado kamid ma tiid kamid ma bihi aniga laga saacadan laga bilaabanay ima matasho markii laga yimaadana aniga
waxaan hoos joogaa oon ku faanayaa calankaas Soomaaliyeed calankaas Soomaaliyeed mawjada xaggana uu igu xidhan yahay gacantana uu igu xidhan yahay jacaylaanu qaba dartiis waxaan ay xaqlayaash wala fiirsa hadalkaas taas markii laga yimaadana ammaankayga iyo xaaladahayga kalena waxa mas'uul ka ah gobolka Banaadir ayaa mas'uul ka Khadiija waad ogtiin ciyaartii finalka gobolka Banaadir baa bil ayada madaxeeda u baaqatay leerkii demisay waad ogtiin taariikhda waad ogtiin dib u baara leerkii demisay ciyaartii dib u baasay yani ciyaalo suuqnimo heerka ay ka gaadhay iyo heerka ay ka gaadhay maxal dhahayay ay ka gaadhay waad ogtiin waana lagu taageeray waana lagu wataa uma malaynaya haddeer taan cabashadayda in wax laga qabanayo laakiin anigu waxaan diyaar u ahay cabashadayda inaan gudbiyo oo dadka ay qusaysa cabashadayda ay qaadaan waa haddii dhalinyarada Soomaaliyeed oo igu xidhan iyo dadka Soomaaliyeed laga leeyahay mustaqbal waara haddii propaganda iyo maxal dhahayay laga rabo iyo in la isticmaalo la gashto taasna ma garanayo I don't know ma garanayo Khadiija soo naagtaas ma inahayn qoftii ciyaartii gobolka Banaadir baajisay ti Cabdi Dhaanta miyuu daaysa iiga deg bay tiri masrax iiga deg maya halkan jigjiga ma aha bay tiri dhaantana loogama baahan goobta jigjiga weliga yani qof kasta oo aqligiisa uu shaqeynayo oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu adkaysanaa maadi qofkii aqli leh oo aqoon lana way dhibaysaa dawladda Soomaaliyeed maxaa diiday dhalinyaro waxa jooga 30 da'dooda ay dhantahay PhD masterisa aqoon leh ka aqli badan ka maskax badan sida dadka loo maamulo garanaya habartan cajuusada maxaa dadka loogu abiyuusaya oo madaxa uga taagan dhalinyarada madaxa uga taagan maxaa dhalinyarada loogu abiyuus garanaya sababtaan idin sheegaya marka sababtaasaan idin sheegay rabaa inaan idin cadeeyo sababta waxay tahay lama rabo qof dhalinyaro oo maskaxdiisa saliimta oo aqligiisa shaqeynaya lama rabo ninkii maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo fikradiisa ay shaqeynaysana laba mid baa lagu sameeyaa in la shirqooro la dilo in la basaaso yani in la basaaso la shirqooro la dilo iyo in la handado la yiraahdo ma hadli karto juq laakiin Cabdi Dhaanta qofka saas la dhahayo ma waayo shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed maanta way og yihiin wax walba ay soo gaara cid ku lug leh way og yihiin ma malayna hatta hadii soo gaara inaan cadaalad heli doono oo la baari doono cid yani dhib gaarsiisa in la heli doono oo cadaaladda maxkamadda saar doono ma malaynayo mana ahaba mana dhici doontaba waayo waan ogahay anigu xamar 12 sano jooga wixii ka dhacay waan ogahay wadankan ayagoo qolooyinkii kala xukumaan baan joogi jiray wax ku baranay marka dhaqankeeda waan aqaan la igama sheekeenay xamar maxaa ka jira leeyma dhahay xamar waxa ka jira waxba la igama sheegay ayna nin waajibaadkiisa shaqo waajibaadkiisa qaran gutaanahay nin calanka siyaasi Soomaalinimadiisa iyo maxaa dhahay dhalinyaranimadiisa magaalada ku joogaana qof kasta oo dhalinyaro Soomaali u yaqaan markii la qaado macallimiinteeda dadka asxaabteeda dadkaan hadda wax wada barano dadkan ba wadaagtanahay oo dhan markii la weydiiyay Cabdi Dhaanta waa qof noocan way ku sheegayaan waxaana Cabdi Dhaanta waxa ku leeyahay dhalinyaro firfircoon oo saas weeyaan dhalinyaro hawshiisa watooyaan anigu hadda haddii aan dhaho waad ogtiin waxaa kaloo rabaa inaan digniin yar idin siiyo waxaa jiraan beejij feega ciwaano feega laga sameeyo been abuura waxaa jira kaliba aniga aan leeyahay oo la jarjaray oo codad la saaray ka digtoonaada arrintaas aad uga digtoonaada xaq u dirirka dadka xaq u dirirka hawaaraan adeer waqtiga maanta lama joogo waqtigii qofka afka la qabanayo waa ma joogno xaq u dhimo حق ودمو مالين بالا دنتا موقتي dad naga sharaf badan baa dhintay dad naga cilmi badan baa dhintay dad naga waxa dhintay ku hadaan dhimanana kuwaas ma la midna haw arkina dhimashada yani xamar waxba kama big deal kama in qofka la dilo easy qofka shaaho la cabayo ninka xabada kugu dhufta xataa meeshu xabada kaaga dhufta kama carrayade kama carray iska tagnanaya because ogeena laga daba tagay oo ogyahay marka waxaan rabaa inaan commentigiina dadka uqaasha commentigooda inaan akhriyo hala share garay arrintan fari kama qodna wax badan baa noo dhiman
waxaan noo dhiman oo rabaa inaan idiin sheego codadkii xalay oo dhan la ii soo diray baan rabaa inaan idin dhageysiiyo inaad aragtaan YouTube-kan waan soo gelin doonaa dadkaasna waan idin la wadaagi doonaa qaar kamid ah sawirradooda waan haynaa maybe maslaantii waa soo dirtay ma garanay laakiin waxba igama qaadi karaan way jiraan xamar meel ka ammaan samantay karaan laakiin waan jeclaa inaan ka tago ma rabo xaqiiqada idin sheegay mugta waan helayaa aqoonsi international oo waddankan uga baxo waan helayaa oo fiisaha waddankan dalbada hore la iga soo saaray waan haystaa laakiin xamar waan jeclaa inaan ka tagana ma rabo waxaan rabaa inaan ka mid noqdo dadka lagu faanayo isbeddelkeeda qaybta ka noqdo inaan noqdaan doonaya insha allah ها ناكتاس وادكتين layrkii dansatay layrkii ciyaaraha gobolka banaadir bay demisay markaasay tiri lama qabanay mana dhacay ciyaarta hala sii sheer gareey walaalayaal intaas aan idinku codsanaya waayo fariinteeda waxaan rabaa dadka qusaysan la gaarsiiyo wax kale ma doonayaan anigu waxaan anigu horaan u qeexay inaanan qof u baahan ahayn dhaqaale iyo wax lamida horaan idinku sheegay waadogtiin dadka yaqaanana way iga warhayaan alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale laakiin dadka waad ka dharagsantiin inaan qof xaq u dirar I don't care anaa farqof shan qof oo maxaan lahayay lay adeegsado Soomaali waan iga badan boqol qof iyo wixii ka badan oo la marin habaabiyay aan ka marma inta kala ay soo hareys malaayiinta kala iga badan malaayiinta kala ayaa iga badan marka hala share gareeyo live-ka hala share gareeyo intaas aan ka codsanaya dadnimadaada iyo sharaftaada lama iibsado lacag lama siisto dee marka insha Allah halkaas bay noo joogaysaa dhufaysku uu qodan yahay dhufayskan anigu dadka saaxiibadayda dadka sharafta leh oo magaca iyo sumcadda Soomaalida ku dhaxleh waan u mahad celinaya ila soo xariiray igu dhiirigeliyay inaan khaladaadkii shalay dhacay aan raaligelin buuxda ka dhiibo adinkana waan rajaynayaa inaad kaabihi aan munaasabka ahayn oo shalay toole iga dhacay ma aanan aqbali waayin codsiyadaadii soo gudbiseen oo ahaa live-ka soo gelin ما أنا نقبل واي لكن جوابتي نايا يقول صوت هذا بس جوابتي أنا ربي أنا ويقول صوت هذا جوابتي أنا ربي لقى بحيو ويقول صوت هذا شعبك الصوماليين ويقول حران ويسوقيا ويقول حراننا وحي الربان وحلا وقنعه إن أنا لو ذاقو أيق الدنيا أنا هلا الرجال قلنتي يقلنتي شالي تولي مسرح بالي يقول بهدلي ضدك قاربة وحي قريين فنان بي إسلام ونبى وحنا صقر عن صاحبنا هاي إسلام بمسرح إيدي دي يلان دير عن هاي كلا إلالي عبد الناصر بو هاني كاس صقر كومنتي كاس والله في صدر كاس أنا قد حمان وما أركي لان دير عن هاي مركان عن أرنتاس مركان كان لي حالة كلا هاي وسؤاله كوها بومبان جواب وقد جاي معنا أما هننا عندها قبيل بين هذيك السنة يا وصاصي مركا صاصي هيد بقول كيف بقول وحي قفا ويقنعي واذكرها لها نسا كرر لي هذا ما جوجنا وقتك قبيل يا محل ده اللي عندنا من اللي قفاني قبيل ووحي حمر يا صومالي ودن هلكا سو غارسي ووحا قلقلن نغا دغاي ووحا نبا ميل كو اوday ووحا مامul goboleed naga dhigay ووحا qashinkaas maanta iyo waqtiga aan dhax fadhino iyo islaan lixdan jir inay ay maxal ah madaxan looga istaagto sababtoo ah still قبيل أمنسن هسكا أمنسنات يلا 4.5 في كتب الموت هسكا أمنسنات هسكا أمنسنات وهو حال كان عليه كم جودينه يو كم أنا فانا يو منا ديريجلينه منا بومبونينه يو أرين الله حريده قبيل إيو محل ده كلا سارد تكارد كم شقيني
ومانا أولاني مانا جالي هرنا وما جالين رالي كمين لكن سببت عن سدا سوء الواحد أنا جو واحد يقول سمي بان أركي وإنها يقول نظرت لهن كذب جوابا وبح أنا قلقي مركب نين حناقصا أو بد كل حجرة أيانا وحال نين ويسق هذاني بيها دول كذا سكما يلالي أنا شال نين دول إيه محل قيان سكيل على منا ما أنا هين نوحنا سكيل عليني إن نفوس كجرو دجال كجرة dadka kale oo fiidiyoyada isticmaala YouTube ka shanay waxa la inay ursaaqada meel kale la hayeen galiyo duca qabooy meel kale ka kaluumaysta waxa la isku day xataa in report lagu sameeyo hawada laga saaro kan waa page other waxbana kama qaadi kartaan lama xidhi kara kan uu tagay mid wax laga qaban kara ma aad baad mahadsantiin waan idin lana arrin yar oo message baa la ii soo diray live ay soo galgalay telefoonada soo galgalay arrin yar oo rabay inaan si gaar idin la sheergareeyaa jirto arrintaas oo arrintaas waxaan rabaa caawa 4 saac ama 9 ama 3 sida u taqaanaan inaan idin la wadaago teleefankaygii wixii kulli hadda waa diyaar laakiin hadda dib baan u dhigtay dad aad aan maartay ixtiraamayaba message ii soo diray oo yiri please hawshan u kaadi sidaas darteed waxaan rabaa inaan aad ugu sii dhaaranin oo aad ugu sii dheeraanin oo hawshaas aanan toos u sii gudagelin insha Allah caawa 4 saac inoo balana wixii arrintaas ka soo kordhana waan idin la wadaagi doonaa laakiin waxaan idin sheegayaa arrintu inay halkay taagantay arrintu inay halkay taagantay aniga ma tanaasulay no ha sugina taas ha sugina dadka ku fikiraya cabdi dhaantinta soo wacdaan baad la hadleenaysan waad qancanaysan fiidiyodeena la tirtiraya ha ku fikirna hatta hadduu heshiis dhaco way ku jiraan kuwan store bay ahaanayaan because history-ga weeyaan moogtay way anigu waxaan rajeynayaa madaxda mustaqbalkeena ka mid noqdo that's it waad u jeedaan hadda dhafoorkaasi indhahaasaan hadda kala qaadi lahayo ilgo-aas iga muuqda de waa waxa weeyaan waa stresskii iyo rafaadkii xalay la iigi dhibaatooyinkii xalay toole aan garanaysaa ku dhex jirnay iyo crisiskii wixii weeyaan marka qofna ma jecla inuu madax xanuun isku rido soo moog ma jecla marka sidaas awgeed hawshu sidaas arrinta nafar kama qodno ma ihi anigu stadio engineer Yiriso ma ihi oo nalkiisa la daminayo haddaad maafiya tahay anigana maafiyana marka makhaayaddan aniga iskale xor baan u ahay adinkana taageerayaasheeda tii bulshada Soomaaliyeed baa tii codsigiina ra'yigiina inaan aqbalo mararka qaar waa waxa weeyaan waa waajib weeyaan laakiin ha ogolaanina in la dulmiyo kabo yani kabaha la gashto oo kale kabaha la gashto xitaa ha ogolaanina midda kale waxaan rabaa inaan idin sheego shalay toole arrinta markay dhacaysay wala fiirso arrinta markay dhacaysay daway fadhiyaan madaxda qaranku ra'iisul wasaaraha fadhiyay aniga markii la ibaha dilay wuu fadhiyay markii dambana khudbadda markuu khudbeynay hadda waan arkay comment oo ra'iisul wasaaraha beejkiisa la soo dhigay comment ka bixiyay aan ku yiri dadka khaldin dhalinyaradu beenta yaan been loo sheegin aan comment u qoray yaan dhalinyarada been loo sheegin Soomaa dad badan baa action ka bixiyo maanta dib soo daba galay oo igu qoslay moogta markii sidaas la dhahayay aniga meeshan joogay hatta waxa kala rabaa inaan sheego xafladda waan dhameystay kamaanan tagin laakiin xasan cali khayre markii waxaan ula wadaag waay fariinteeda waxaa la shaqeeyay ragii igu yiri orado farmaajo daarooda u tag way la shaqeeyaan xafiiskiisa ka shaqeeyaan أنا مرة بينا ضد سكوتر مرة بينا شقة ضد قنصة مرة بينا بداس قلو لكن والله وبالله وتالله ولا يجي وأنا قرنا إنسان قف كاستا ضد كدولة كشقية يضد كصاحبه ده إذا أنسنا قانو قف كاس هذه أنا لا شير قروجة ويقرني أسقنا ويداونا يوسوجي هبين كاسات هذا عندي شيء هبين كي علن كي هاي هبين كي علن وماشي الله يو طالع ده تحتور لجو قبني حفلة ده هبين كاس هاي هبين كي اللي يقول أرجاس وأنا كان حتى وقت أركت الزهرة صور أنا قالينا صادق هالك
يا واد أركتين وإذا أركتين سماه dadka igu xidhan way ogyihiin waydu aragteen soomaha inaan soo dhigay arrintaas dawladdu mismeeno dawladda waan jecel waan ku faana makhraatina waxaa laga yahay inaan activity-yada ugu qaban ama fan ha noqoto ama si kale ha noqoto inaan qayb ka qaadanay dadka qaarna way ogyihiin intaan ogeynaa hadda loo sheego hala gaarsiiyo taankii walaal nasiixa shaqlan ku salaamaya adigana hadda kor farta iga dhacday raalli ahow farta iga ka dhacday hadda kor aan ku salaamaya walaal macaan sharafan ku haya aad baan ku salaamaya walaal nasiixa adinka kale saaxiibada kale wada salaam saasay ahayd marka nin xafiiskiisa dad ka shaqeeyo dadkaas ka sokeeyaan intaad u laabato marjac ma u noqon kartaa su'aashaas rabaa inaan weydiiyo ninka la shaqeeyo xafiiskii prime ministerka ku dhahaya farmaajo daarood adigu daarood baa tahay orodoo war anu ma ihiba dadkaas daaroodna ma ihi maxal dhahay iyo dirna ma ihi cidaha kale oo inta kale ka soo hadhayna ma ihi aweena ma ihi anu fanaan qaran baan ahay calankaas baan wataa miskiin ilaahay baan ahay ardaydaas maxal dhahay hawshooda wataan kamid ahay yalla igu khaldamin nimayo intii la soo jarjaray soo galin doonaan dadkii oo caaq ahaa marka nin sidaas yidhi oo shalay sidaas dhahay intaan u tago cabasho uma gudbinayo inaan idhaahdo adeer arrintaasaa jirtay wax ka qabo oo daanu fanaan meelaha ka heesaanahe awalba wuxuu u socosho qabay islaantan durbaanka wadato intay ku daa mashxaradaysa asagana uu raalli ka yahay asaga uu ogyahay inaan waxba gelin waxaa laga yaabaa inuu camiraada iyo qosalka iyo makhaayada ay kala kicinaysan inuu ka rabaa laga yaabaa laakiin uu ku daro way dhici kartaa laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed isbedela nacala shaydan ku yaala dhalinyarada jira yaan idin noqon wasiir idin ma noqonayso wallahi idin ma noqonayso islaanta 20 sano jir ah dhalinyaro wasaaraddaas dhalinyarada iskale dadkii fankiina iyo maxaa idin wacyi galiyaana u bahdilayo waa hadda dad aqli loo wax fahmaytiin haddii aad tihiin ما جرتو هذا اللي يسوي مركب عند السلام يا تلفون بدل ما يسوق القلية إن شاء الله واحد نبلنا عاو أفر ساعة نبلنا تلفوننا يسوق القلية تلفوننا ده صار ربنا كتشباب بعدنا تنتين وحكوا ربنا فرنت هذا عن ربنا نكدره بقول كيو بقول وحن ربنا نكره القريو مسجد يا فريمها الله يصدري يا كل الكين كم وذا جوابي كرا وأنا إن شاء الله إذا من نبعي وأنا إن شاء الله وأنا كفانا وهذا قرب استكتن وأنا لص على واحد والبا هذه موجسين صديق عشي ما ندين جعل عنك أنا